السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا صاحبيال وحيد لي هاي فضلا شانك سبسكرايب تي لايك تي شير تي كومنتيga inta bala booba way gabadhiini inaad garab istaagtiin qasab in ku tahay sama صاحبيال waxaan doonaynaa ka hadlo dhibaatooyinka loo geysanay dumarka Soomaaliyeed tacadiyada loo geysanay dumarka Soomaaliyeed mar walba waxyaabaha ku dhaca dumarka Soomaaliyeed gabadh walba xanuun dareentay gabadh walba dhibaato dareentay gabadh walba stress dareentay gabadh walba waalatay gabadh walba isgubtay gabadh walba rafaaday intaba in ragba ka dambeeyo war halkaan ka galnaa madaaqada hoosteeda ka galnaa bal halkaan ka galnaa in kamana maarmi karano wanaga idin wadanee halkaan ka galnaa garnaqsi maanta raggan la garnaqsanaya haddaba waxaan inoo wada gabadh Soomaaliyeed oo rafaadsan oo la siciyay oo iyadoo yar inta nin lagu daray yacni rafaadka ka muuqda iyo dhibka ka muuqda iyo tacaddigii loo geystay daraadii inan taayar ay la waalatay kadibna ay ku dhashay laba caruura midna uu ka saqeeray midna uu aabaheed qaatay markii ninkuna wuxuu ku jecel intaad caafimaadka qabtaad nooshahay buu ku jecel yahay maalintaad waalato ka dhaqaaqaya wallahi ka dhaqaaqaya si walba haato bal muuqaalka midoonana daawano وداير لوالتي قلبي جبنا كقادي قول قصب ahaa oo lagu dareenin ka daaweyn 6 sano ka hor harsi iyo hurdaba midna ma jiro lugta ay ka xiran tahay habeenii maalin dhulka ay sidan u qaraacaysaa iyada oo dib u soo xasuusanayso xanuunka walwalka iyo naxdinta ay ka qaaday habeenkii koobaad ee nin ka daaweyn ayna xamili karin guriga loogu xiray waxay ku soo barbaartay mii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun bal noloshaas kubsi maxay dhaantaa noloshaas kubsi maxay dhaantaa inan taayar qalbiga wuxuu ka raacay habeenkii koowaad ninkaas sidoo u garanayay amba sidoo u xumeynay amba sidoo u kubsanay baan oran karaa waalidiinteen horta mar walba kama fiirsadaan yacni cid ay ina siinayaan xilliga ay nagu bixinayaan imika bad moodaa habla in la iska daayay barigii hore hablaha wala silcin jiray bal aan ku yar socon daadeeduna aad ay u yartahay ma iga rumaysanaysaa sidan waxay ku dhashay laba cunug oo mid dhimatay midna aabaheed ka haystay tacadiyada noocan oo kala waa kuwa ka dhaca wadankeena kuwaasi oo mugdi galiyay nolosha gabdho badan oo barbaar ahaa waana la inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waa wax horta runaantii laga xumaado waana wax laga diidiyo shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan leeyahay fadlan gabadha yar hal caawiyo fadhiga hal looga kaco dhakhtar hal la geeyo hal la daaweeyo wixii loo qaban karayo ha loo qabto ilaahay baa wax qabta ilaahay baana caafimaadkii cudurka bahaya ilaahay baana awooda maanta inuu xuskeeda daqiiqad gudaheed ugu soo celiyo laakiin ilaahay wuxuu isku naxariista markaas aan idin naxariisanaya hadaynan isku nixin oo inaan isku naxariisan ilaahayna inoo naxariisanayo waan jirdacooday runaantii indhahaygana ilmo ayaa ku soo istaagtay wallahi maalintii koowaad aan daawaday yacni ilmada wan cishan waayay cunugta yar يعني سلعة كموضة بس لكن وحليها والد كصوماليات يجيلنها ونقطة أم بتصالحها ونقطة أم بها كوه نقاطان إن كستو أنا وحن كل كوه نقادنين بل وحن ليه رجو إن الرجو كي ونكسنا هذا حمي كي حمانا وكسانو قرنية مر وناكسنون كجرا لكن بقول الله الحب إن كجرا بقول كيبا شيء سجاشن وحيين شنت كل هدي وناكسينهين دمرك ومن حريستان دمرك ما قرنين حق أي كلينهين نرجع أيو إلهي وحن كليه هي كادجي adigu ilaahay niraga ka dhigay ayaa qof mas'uul laga dhigay oo ilaahay mas'uuliyadeedii ku saaray aad sa u garanaysaa yaa aad ka oohinaysaa kubsanaysaa dilaysaa xumeynaysaa furaysaa guursanaysaa noloshu wasdee qofkan hadaan mas'uuliyadiisa qaadi karin haba guursanayskada qofkan hadaan mas'uuliyadiisa qaadi kareynin habda wax kale heer waxa la marayaa xitaa iminka dadkii ninkii ku qabay inuu kugu noqdo cadawga koobaad ninkii ku qabay inuu fuliyo ka duwa hadhow kugu hanjabo hadaad cabatid amba dad waalidka waa cabatid social media gelinaya heerkaas ayaa maanta la garaacaya maalin dhow tolo waxaan maqlay gabadh yar oo ninkeedii guursada iyada oo intuu kaxeeyay
uu ku yiri aad sabab igu kaalay uu makaankii kala baxay kadib inantii iyadoo uur u leh intuu daawo siiyay si ay u xanuunsato kadibna la dhakhtarka ilmaha laga soo xaaraya makaankeeda loo soo saaro uu iibsado isagu uu qaato sheekadaas maalin dhowtole inanay ku dhacday familkeeda ayaabaan ogaa dhibaatooyinku way badan yihiin hooyo Soomaaliyeed oo awlaad leh oo gurigeeda joogta oo maanta hadii la wareysto mikrofon la hor istaago yacni waxa ay kaaga sheekeynayso Ilaahay fajac ku keenaya marka waxa la ragga Soomaaliyeed fadlan dumarka sa aad u la dhaqmaysiin ka daaya dumarku mar waydi dhaleen mar waydi dhasheen mar waydi dhaxeen marna waa dhasha bal Ilaahay baan ku dhaariyay waa hogaaga waa walaasha waxaan ku leeyahay mar walba iyadu waxay kula garab taagan tahay inay ka farxiso waxay kula garab taagan tahay inay wax walba wanaagsan kula qaybsato adiguna waxaad la garab taagan tahay sida nolosheeda iyo mustaqbalkeeda u baabiin lahayd runbaydi sheegaya ninka ragana inta caafimaadka qabto buu ku jecel yahay maalinta aad dhakhtar gasho maca salaama ayaa isku kiin dambaysa amba maalinta aad xanuunsatid maalinta kuugu dambaysa si walba haato wallahi waa wax laga xumaado horta inay inamadeenii amba walaalaheen ay sa inoola dhaqmayaan inay mar walba ina xumeeyaan laakiin waa wax iska caadiya Ilaahay baanan qoray أنا لكن وحليها رجو دب إسكو عنانتا ودب إسكو بالنقطة وعقل ياشا وإله من إنكو داري إسقبت إذكو وكين حن يا كين حنا إلهي ورتها سوينا شيء لكن بالميلا بدن إذكو إسقصو لسا إما كانوا حليها رجع صوماليد إن أنت حسيت الله عون لفلو كذا قالوا إذك إلهي كسكو أم بقرا لك على كسكو إذك عياسا أو قرتي marka inta rag isu urursadaan bal gabadha yar dhakhtar hageeyaan ha caawiyaan alisti hadaan wax u qaban karin xitaa guriga loo dhiso nolol wanaagsan si ay ugu noolaato ay raaxa u dareento ya ma awoodaan familkeedu waynaga arkayna waxa leeyahay indhahaga ku macalina indhaheena inoo macalina marka falowgeeda aan galnaseen hawshaas insha Allah bismillaah karim aynu dhameyn lahayn ilaahayna hayna la garab galo ilaahayna waxaan uga baryeynaa ilaahay isaga gacmo weyna ah ilaahay isaga arkaya ilaahay isaga wax walba gacantiisa ku haya inuu ilaahay farash khayr qaba u furo gabadha yar xuskeedana u soo celiyo ilmaheedina uu keeno nolosheedana uu qorxiyo ilaahay waxaan ka baryeynaa insha Allah bismillaah karim isbedel degdeg ah inay aynu ilaahay ka filanayna aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay saaxiibayaal run ahaantii mar walba wanaag ayaa qurux badan ilaahay afkeena mar walba waxyaabo wanaag ah ha ka keeno idukuna aad iyo aad baad mahadsantihiin haddaan wax qalad ku hadlin iga raan noqday cafino si walba haato muuqaalkan kale inta ku doono saasiyo nabadgelyo